jaamacadani oo ku taala caasimadii hore ee dalka Suudaan Umdurmaan ayaa waxa dhigtay oo kaliya hablota oo la aasaasay sanadkii markuu ah 1996 ujeedka loo aasaasayna uu ahaa in kor loo qaado tayada heerka waxbarasho ee gabdhaha ayaa waxa ay qayb ka qaadatay sanad waliba inay qabato bandhig dhaqameed ay dhaqamadoodu ku soo bandhigayaan dhammaan dawladaha ardaydoodu ay dhigtaan jaamacadan. bandhigani ayaa waxa ka soo qayb galay gabdho Soomaaliyeed oo dhigtay jaamacadaasi iyagoo ciyaaray door la taaban karo muddadii uu socday bandhigan soona bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan cuntooyinka u gaarka ah shacabka Soomaaliyeed dharka hidaha iyo dhaqanka iyo ka sheekeynta madaxdii hore ee dalka soo martay. goobta uu ka dhacay bandhiga ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa oo qaybsanaha hidaha iyo tacliinta sare ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Dr. Cabduqaadir Guulane iyo gudoomiyaha midowga ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan iyo Yacquub Weheliye. Dr. Guulane ayaa aad u bogaadiyay doorka fircoon oo ay sameeyeen gabdhaha Soomaaliyeed isagoo arrimahaasi warbaahinta qaranka la hadlayna waxa uu yiri waxa sharaf weyn noo ah inaan kala soo qayb galno ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Ahfaad gabdhaha oo qabtay maanta barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. jaamacadda Ahfaad sanad walba waxay qabataa barnaamij la yiraahdo National Day oo lagu soo bandhigayo dhaqamada kala duwan ee dawladaha Soomaalida waxay soo bandhigeen culture-ka Soomaaliga haddii ahaleed cunnada hidaha iyo dhaqanka labiska. barnaamijka gabdhaha ay soo bandhigeen wuxuu ahaa barnaamijka ugu fiican ee meesha ka baxay. anagoo fursadan ka faa'iideysanayna waxaan rabnaa inaan u mahadcelino maamulka jaamacadda Ahfaad guud ahaan gudoomiyaha jaamacadda Ahfaad Professor Qaasim Badri. waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo isna kaalin fiican ka ciyaaray. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa qaabadada gabdhaha Soomaaliyeed ee jaamacadda Ahfaad oo barnaamijkan sanad walba si hagar la'aan u soo bandhigo. barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. wuxuu xambaarsanaa qiimka Soomaalida, wuxuu xambaarsanaa dhaqanka Soomaalida, wuxuu xambaarsanaa culture-ka Soomaaliga. Soomaalida meesha maadaama ay tahay ardayda ugu badan ugu fiican xagga akaademiga, ugu fiican xagga aqoonta, ugu fiican xagga culture-ka. bandhigoodana wuxuu cabirayay wanaagaas uu cabirayay. waxaan noo mahadceliyay mudiirka jaamacadda iyo maamulka jaamacadda ayaa noo mahadceliyay kaalinta aad u balaaran ee ka ciyaareen gabdhaha Soomaaliyeed sanad walbana ay ka ciyaaraan. aad iyo aad u mahadsantahay. waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha dhigtay jaamacadaasi oo dareenkooda cabiraya uguna horeyso gudoomiyaha ardayda jaamacadaasi Ahfaad Hayaad Cali Bashiir iyo ku-xigeenkeeda Naciima Axmed Yuusuf. waxaan dhiganaa jaamacad ku saabsan gabdhaha. maanta waxay noo ahayd maalin aad u weyn. waxaan ka qayb qaadanay Culture Day ama maalinta dhaqanka hidaha iyo dhaqanka wadan walba uu gaar u leeyahay. waan ku faraxsanahay maanta inaan hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed aan ku soo bandhigno jaamacadda anagoo ah arday qurbo joog ah. Soomaalida meel walba ay joogaan waxaan ku dhiirigelinayaa hidaha iyo dhaqanka yaana laga tagin mar walba. hidaha iyo dhaqanka waa astaan gaar oo noole. marka hore waa idin salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. wuxuu ahaa barnaamij faneed aad u qurux badan oo maxay ahayd ardayda Soomaaliyeed ku soo bandhigaya dhaqankooda iyo dawladaha kale anaga dhankeena ka geejinaynay. aad ugu mahadcelinaa dhammaan safaaradda wariyaasha wiilasheena quruxda badan inta inaga soo qayb gashay gabdheena dhammaan waa mahadsantihiin aleeya. dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Yacquub Weheliye isagoo ammaan ballaaran u jeediyay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan gaar ahaan kuwii matalayay bandhig dhaqameedkii lagu qabtay jaamacadda Ahfaad. waxa uu u ballan qaaday inuu ururka ardayda Soomaaliyeed Ahili Hooba la garab istaagi doono ururada hoos yimaada midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. dawladaha ka qayb qaatay bandhigani ayaa waxay ahaayeen kuwo aad u badnaa balse doorka ugu fiican ayaa loo doortay tan ay soo bandhigeen gabdhaha Soomaaliyeed ee dhigtay jaamacadda Ahfaad taasoo ay ku muteysteen bandhiga wacan ay sameeyeen soona jiitay dhammaan ka qaybgalayaashii xafladda ka dhaceysay hoolka weyn ee isla jaamacadaasi. Cabbaas Maxamed Nuur, warbaahinta qaranka, caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum, Suudaan.